سيد عبد الغني عبد الله إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayay inuu safar ku tago dalka Sacuudi Arabia iyo wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo gaaray dalkaasi sidoo kale dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dacwad ka dhan ah dowladda Soomaaliya u gudbisay ururka Jaamacadda Carabta Cabdi Ghani Cabdullaahi Ibraahim ayaa faafahinta warkan inoo haya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa waxay ka baxeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyagoo gaaray isla oo ah dalka Sacuudiga waxaana la tilmaamayaa in wafdigan ay hordhac u yihiin wafdi kale oo madaxweyne Farmaajo hogaaminayo dhawaana aadaya dalkaasi madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa in uu u baxo safar uu ku tagayo dalka Sacuudiga kulamana waxa uu la qaadan doonaa sida la tilmaamay mas'uuliyiinta boqortooyada Sacuudiga warar ay heshay idaacadda kulmiye ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha uu ka qayb gali doono shir madaxeedka ama shir ay leeyihiin madaxda ururka Jaamacadda Carabta kaasi oo ka dhici doona dhawaan magaalada Duuma ee dalkaasi Sacuudiga dhinaca kale warar ay heshay KNN ayaa waxa ay sheegayaan in Imaaraadka Carabta ay dacwad ka dhan ah dowladda Soomaaliya u gudbiyeen Jaamacadda Carabta taasi oo ku aadan lacagtii badnayd ee dhawaan lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayna wadeen diblomaasiyiin Imaaraadka ayaa waxa uu tilmaamay in taasi ay tahay mid hareer marsan xeerka caalamiga ah ee lagula dhaqmo ama waa ka dhaxeeya diblomaasiyiinta caalamiga ah waxaana ay dowladda Soomaaliya ku eedeeyeen in ay si toos ah Imaaraadka ama qawaaniinta caalamiga ugu tumatay dacwadda dowladda Imaaraadka ay u gudbisay Jaamacadda Carabta ayaa waxa ka horeeyay dacwad kale oo ay gudbisay dowladda Soomaaliya kadib markii shirkadda DP World ee laga leeyahay dalkaasi ay heshiis hareer marsan qaanuunka Soomaaliya ay la saxiixatay Soomaaliya